السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعنا ونحسن تاودير كسر هذا بحثات ميديا إن waxaan idin wadnaa barnaamij ayaantaanba la isla wadwadadka ay TikTok isla wadeen barnaamijkan waxaa igala qayb qaadanaya walaalkay Cabdiqaadir Koronto meeshaan martiim ka tihiin asxaabta maxaa leedahay ma kugu soo dhaweynaya qarto weligay baxsaaf ka soo muuqday goorma eeda markii la furayo sanadku ahaa 2020 bilaa 20 hadda waa 90 gidaade 90 ma jirnay sanadkan waa YouTube ugu horeeyay oo Soomaali leedahay oo laga hirgeliyay dalii dibadda baxarsaaf waa YouTube ugu horeeyay oo Soomaali leedahay sanadkii ugu horeeyay oo Soomaali ay YouTube bilowdan la bilaabay 90 Soomaha mis 90 YouTube jirin 90 maahan YouTube kan uu facweyn waxa la furay 60 Soomaali bulshada Soomaaliyeed mar walba iyo meel walba iyo goob walba iyo xilli walba idin taaba waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waqtigu waa idin wacnaado caafimaadna ku waara baxarsaaf media xilliga la sheegay waa iska yara kaftan wax idinka gala malaha xilliga la furkoodha meesha gaduuda baabi'iyo subscribe ha loo saaro suulka meesha saan tan kore tan hoose iska dhaafa tan korena ha loo like gareeyo share gareeya wax weyn ma share marka ku dhufatid WhatsApp iyo waxyaabo kala mid ah ku soo bixi doono ku sii dhufta adig macallinka kale asxaabtaad u dir Facebook ku sii dir WhatsApp ku dir meel walba ku dir wax idinka gala ma aha wax cilado ka soo gaarayna ma laha wanaag un bay u taawalaasheen hala dhiirigeliyo amaal soo dhawaad dadka kaajdinalka ku soo dhaw wadho koronto ayaantaanba TikTok waxa jiray challenge-yo dad inay shaqaystaan oo lacag inay lacag sameeyaan rabo oo laakiin magacyo kale ku soo dugaashanaya jiro dhalinyarada maskaxda ka galay yani dad waxa jira anaga naga mid ah oo dhalinyarada naga mid ah oo dhahayo qofkan inaa support gareeyo waa yani qabiil ay ku soo gabanayeen laakiin ayaga aniga koronto kale wax maana naga ma dhaxayso dad saaxiibaan ahay waa isbuucina washeenina waxaan dhahnaa koronto niho caaw game ciyaarina si wax fiican noo soo galaan sidee u aragtaa in labadayna qabiil aan soo kicino marka waxa u jeeday hawii daarood maxaa loo kale furtun balbalaarka u jeeday ee suqaal jecel iyo jareerweyno kale marka dadkaas oo kale maxaa leedahay horta waxaaba qalada mataqaanaa adiga naftirkaaga hadda magacii inaad sheegtid naftirkeeda ayaaba wax laga qurux badan ayaaba laga qurux badan yahay si fiican waxa sida meesha loogu soo qoray dadkan horta qabiilka waxun ma ahan horena waa u sheegnay qabyaalada wax la yiraahdo xun qabyaalada waxa halkan na dhigay maanta ina halkan Nairobi anaga maanta aan joogno waxana keenay oo Soomaali Maxamed dal iyo dibad inaan ku firarsano oo qaxooti ku noqono waxa nagu kalifay waa qabyaalada ay qabiilka ma ahan qabiilka qof walbaahi qabiil uu ka dhashay qof walbaahina muxuu ay sheeg horta waayii hore waxa ceeb ahaan jirtay horta aniga kale xamara ku dhashay ku koro ku barbaaray ilaa hadda macnaha reer qabiil mihi mana garanayo ilaahayna ima baro baahina ilaahay igama soo geliyo qabiil alxamdulillah Soomaali weyna iga badan ma garatay waligeena uma baahan doono saaniga aaminsanahay hadda ka hor xitaa dawladda ay dhahday hadda u baahan tahay mushaarkaaga qabiilkaaga waa inaad xildhibaankaaga iyo wasiirkaaga wallahi thumma wallahi waan diiday waxaan ku dhahay wixii xirfadeeda aan ku waayay oo qabiil ah uga baahanahay bul Allah siiyo arsaaqada Allah bixiyo marka horta qabiil wax fiican maahan in qabiil wax lagu raadiyo iska badaayay qof dhalinyaro ah oo 50 sano ka yar magac qabiilino afkiisa ka sheego ceeb bay ahaan jirtay hadda waxay noqotay wax iska sheeka ah waliba qabiilka marka la yiraahdo dhalinyarada kuwa dalka gudaha ku dhaqan aad buu ugu yeeriyaa qabiilka siyaasiyiinta iyo dhulkaas kuwaas u baxooga fasahaad dhinaca qabyaalada saameyn uu ku yeeshay laakiin dhalinyarada Muqdisho iyo gobolada dalka iyo gudaha dalka marka la yiraahdo aad bay uga fog yihiin balaayo waxay ka taagan tahay maalinta xamar ka soo baxdid oo qurbaha imaatid Nairobi da marka ugu imaatid ayaa horta qabiil iyo balaayo ugu imaanay qabyaalado dhan marka aad sii baxdo Mareykan dhulkaas iyo dibadaha aad sii tagtid wayba ka sii darantaa waxaan maqlay meelo masaajidada xataa qabiilkii kuma tukadaan qabiilkii masaajidkaas uu leeyahay meel walba
marka pointkan ku aadan TikTok horta sida aan ognahay TikTok lacag lagama sameeyo waxa lacag laga sameeyo waa baraha bulshada oo uu ka mid yahay YouTube uu ka mid yahay Facebook oo page marka aad leedahay iyo waxyaabo la mid ah laakiin TikTok lacag lagama sameeyo TikTok waxa uu leeyahay kaliya lacag oo hadiyado diyaarad iyo baabuur iyo waxyaabo la midka ah oo qofka loo diraayo waxaasa horta lacag laga sameeyaa TikTok lacag lagama sameeyo waxaa jiray waayihii ugu dambeeyay marka lacagtaas ayaa waxa kala qaybsanaya TikTok iyo qoladii dhaxda ku dhuftanaa ma fahanti lacagta qofka walaalka lahaa ku taageera qofkii ku taageersanaa ayaa lacagtiisii in adiga TikTok kala qaybsataan waayo horta waxaa kaloo jirto markii ay soo baxeen arrimahan aad baa loo xiiseenayay Soomaali waxay ku fiican tahay 2 maalmood 2 maalmood kadib way ka xiisa dhacayaan waa laga xiisa dhacay wixii la dirdiray iyo hebelowaa wixii ma jirin marka si bulshadii looga gado si bulshadii ay u xiiseeyaan ay u daneeyaan waxa kaliya Soomaali Maxamed laga gadi karo hadda waa qabiil wax walba qabiil markaa ka dhigtid waxay noqonayaan cirkaas galaya laakiin arintan aan ka hadlayno hada qabiil ka dhigno cirkaas u galaa laakiin loo baahan yahay YouTube iyo baraha bulshada iyo waxaas oo dhan war Soomaalinimana deeqdaanaga Soomaali wax ka fiican Soomaalinimo wax ka fiican waa la waayay koronta hadii aan ka dhaxgalo dad waxa jiro gado hadiyadahan lacag kumanaan kun oo dollar ku beertareeyo dadkaas maxay ku leeyihiin adiga ahaantaada maxaa leedahay dadkaas way mudan yihiin in la dhaqo horta wallahi dad fiican waaye hadayba lacag bixinayaan laakiinse waxa qaldan laakiin waxa qaldan maya waxa qaldan meesha ay ku bixinayaan qaldan laakiin qofku inuu lacag bixiyo wax iska caadi wax fiican waaye laakiin lacagta inta ku bixiso waa dad u badan oo u baahan jiro xitaa hadii qabiil la yiraahdo xitaa qabiilkaaga deegaan ku soo jeeda deegaanka uu ka soo jeeda baahiya ka jirto lacag la'aan baana ka jirto dalkii hadda Muqdisho kala tusaalaha lacag la'aan baana ka jirto deegaanada muxuu ayeesha gudaha Soomaaliya oo dhan lacag la'aan ka jirto waxa suurtagal ah qofkaas waalidkiisa walaalihiisa inay ka baahan yihiin lacagtaas uu TikTok macnaha laga sheego waaye hebela wallahi xalay wuxuu sameeyay diyaarado gadaayeeyo tareelo wuxuu ku wadaa Mareykanka magaciisa saas lahaayo lacag saas u bixinay heblaayo saas ayna intaas ay bixinaysaa laga sheegadaas iyo magacaas buu ka rabaa in lacag la bixiyo wax fiican waaye laakiin lacagta wada fiican ku bixi meeshii loogu tala gala gaarsii hadii qabiil ay ka tahana qabiilkaaga iska dhaaf familygaaga qoyskaaga ayaa u baahan lacagahaas aad qasaarinaysid meel feeraha ka jabteen meel cid la aha lacagtaas ku bixisay dadka ayaga soo abaabulay oo qabiilka ku hoos kabanay maadaama anaga dhalinyaro aan qabiilka aan shaqay iyo shaqo wax aan ku lahayn ayagana maxaan leeyahay horta ayaga naftirkooda dad fiican waa maxay ku fiican la macnaha way fikireen waxay barteen Soomaali Maxamed waxay ogaadeen in waxa ka gadmay Soomaali qabiilka inuu gadmay ogaadeen marka waxa kaliya lagu soo kicin karo ani cilada ayaga meel lahaan cilada ayaga ma saaray aniga bulshada oo wasta wax walba waayo ayaga wax walba u nugul haday noqoto dagaal haday noqoto dhibaato haday noqoto in lacagtooda ay baxdo wax walba ayaga u nugul horta ayaga in aqli yeeshaan ay fakaraan maxaa dano kugu jiro dhalinyaradan waxaan ku soo fakaray waarag saaxiiba kulligood waa wada saaxiibo waxay ku fakareen kaliya inay muxuu ahay business dhaqaale ka sameeyaan meeshaan yaa marka laga rabaa inuu dhaqaale bixiyo waa bulshadii waa bulshadii maxay dhaqaale ku bixiso marka su'aasha meesha ka taagan tahay halkaas ay fikirkooda ugu gadmay lacagtina way heleen wixii sidii laga rabana waa la gaaray labadaas qabiil hadda waa la helay Soomaa waxa hadda la raadinayaa kuwa kale in la soo kiciyo sida hadda sheegtay muxuu ahay hadda magaca qabiilka meesha uu ka sii bixi rabaa marka misleedahay wax kale la imaan doonaan nimankan si marka la gamekoodii wax kale oo ka qatarsan oo ka fiican oo ay lacag ku heli karaan oo aan qabiilkaas ahayn ma jiro waayo waa waxa kaliya Soomaali hadda maanta hadda aan hubkay qaadan rabo oo dagaal u socdo waxa kaliya qabiil baa macnaa waa bareey yaa reer hebel hooy hadda maanta dhaho waa kan waa taagan yihiin iyo wayeelada kulli Soomaali marka waxa isweydiin mudan bulshadu saas ma aqli ku leeyihiin saasay aqli ku leeyihiin
waxay leeyihiin qofkaaga haddii aad maanta garab istaagin yaa kuu garab istaagay soomaalinima isku garab istaagno qof walbo Soomaali ah qof walbo Soomaali ah oo garab u baahan aan garab siino qof meel walbo li kaga sheegay in dhibaato ay ka jirto abaar ay ka jirto oo istaagno dhalinyaradan hadda lacagaha bixiyo ee ku bixiyo qaabkaas qaldan lacag inay bixisaan wax fiican wada sax ku bixiya masaajida dhisa ceelal qoda muxuu ay sheeg musqulo ka dhisa deegaanada musqul la'aanta ka jirto muxuu ahaa beeraleyda abuur hala siiyo isbitaalada caawiya muxuu ay sheeg meelaha abaaraha ay ka jiraan gurmad balaaran u sameeya lacag inay bixisaan inay bixin kartaan ayaad na tusteen maadaama aad na tusteen isku daya inaad wada wanaagsan iyo meel sax ah aad lacagaas ku bixisaan si fiican marka runtii iyo gabagabadii aan kusii shaqeynaa ugu dambeyn waxaan leenahay asxaabta baxarsaad ku xiran iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan aniga ahaanteyda korontiisa wuxuu idin dhihi lahaa idin dhahay inta u dhiman oo idin dhihi doonaa qabiil waxaa noo matalaay go'aan loo soo hubadayna aan meel dhigno danteena aan bal fiirsano haddii aad rabtid in aad lacag bixisno ku bixi meelaha markaas ay abaaraha ka jiraan isbitaallo dad badan koronto social media maalin walba soo dhigaa oo baahi hayso oo yani waxay cunaan waayeen qaara caloosha ka soo jeeda qaara yani ma wala daawanayo horta kilibkaas marka aad soo dhigto horta in la daawo in lacag la bixiyo waxa ka horeeyo horta in la daawado Soomaa ma la daawanayaba kaale maanta wax ceebo yar soo dhig bal heblaaya saana iyo faara kana iyo soo dhig cirkaas uu galaya ma fahanti marka haday daawan lahayn xitaa waa adiga hadaadan waxba awood maanta aadan lahayn qofka walaalka ama saaxiibka hadaa u sii share gareyn lixdaa fiican aan leeyahay looma badiraayaba marka asxaab waxaan idin leenahay hal iska dhaafo qabyaalada iyo waxyaabaha noocaas ah haddii aad qabiil xataa wax ku bixinayso qabiilkaaga iyo dadkaaga meeshay degaan gay oo abaaraha wax ku bixi marka runtii gunaanadkii maxaa leedahay adigoo noo soo xireeyay qabiilka naftirkiisa kiib gooyna dhiilaana kiib gooyin marka waata asxaabta ku xiran baxartaas media aniga Abdulqaadir Kuaralo koronto isku xiran Kuaralo koronto waxaan leenahay mac salaamo intaan video waxaan ku kulmi doonaa hadalada sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum.